subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiisaaka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo markii ugu horeysay sheegay in khilaafka u dhaxeeyay isaga iyo Dani ay sababtay inaysan salaanta iska qaadin maamulka Hirshabeelle oo walaac xoogan ka muujiyay fatahaadda webiga Shabeelle ka geysanayo deegaano ka tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kiisas cusub oo la xiriira COVID-19 oo laga helay deegaano ka tirsan Galmudug hoos u dhac ku yimid faafidda COVID-19 ee dalka Koonfur Afrika iyo Soomaalida oo bilaabay inay dib u furaan goobahooda ganacsiga maalintii labaad oo si weyn loogu ciidayo Muqdisho ee gobolada dalka xilli dadka qaar ay maanta u tahay maalintii koowaad ee ciidda iyo dalalka qaar oo ku jahawareersan dib u soo laabashada COVID-19 waa subaxnimo axad taariikhduna waxay ku beegan tahay 24 bisha shanaad sanadka 2020 warkaas oo dhan saaka waxaa akhrinaya waryaheena Mawlid Xaaji Cabdi mahadsanid cali ibraahim cabdullaahi cali suxayfa subax wanaagsan dhegaystayaal ciid wanaagsan kusoo dhawaada warka subax oo faahfaahsan madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay sheegay in khilaafka u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ay sababtay in ay salaanta iska qaadeen sida uu warkan ku faahfaahinayo waryahayga Cumar Maxamed Soomane ku-xigeenka madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay laantafka Soomaaliga idaacadda BBC-da ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay warar sheegayay inuu jiro khilaaf kala dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kaasoo iminka ku xoogaystay madaxtooyada iyo guud ahaanba deegaanada Puntland Axmed Karaash ayaa si rasmi ah u cadeeyay jiritaanka wararka sheegaya khilaafka kala dhaxeeya madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani isagoo hoosta ka xariiqay in khilaafka uu salka ku hayo magacaabista madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani uu ku sameeyay xubnihiisa golaha wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada taasoo Axmed Karaash uu sheegay in aan lagala tashan isla markaana ay baalmarsan tahay dastuurka iyo shuruucda u degsan Puntland madaxweyne ku-xigeenka waxaa kaloo uu sheegay isagoo hadalkiisa sii wata in magacaabistii ugu dambeysay ee golaha wasiirada iyo ku-xigeenada aan wax wadatashi ah lagala samayn madaxweyne ku-xigeenka taasina ay tahay mid aan sharciga waafaqsaneen maadaama aan loo marin wadadii saxda ahayd ee looga baahnaa magacaabista golaha wasiirada iyo ku-xigeenada sharci daraan diidanahay anigu wax kale ma diidan sharci darada lagu raacay waa dastuur jabintaas qodoba madaxweyne ku-xigeenku uu ku leeyahay oo dadkii maxay tahay dastuurka samaystay ay ku dhigeen oo ah in madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ka wada tashadaan hadda dastuurka dib u raacdo ee qodobka 8aad farqadiisa 5aad oo madaxweynuhu leeyahay qodobka 11aad oo dhan ama farqadiisa 2aad ay eegi kartaa marxalad aanu ka wada tashano markaa xaalkayga warmoysa ayaa mar xoogaa ma maqlaysa odayaasha way iskhilaafeen khilaafkaasi waa jiray khilaafkii annagoon ka wada hadlin oo isaga iman daaweyn meel wada tashan karaa waxyaabo badan oo aan maxay tahay diidanahay way jiraan waxyaabo badan oo inaan anigu maxay tahay qabto oo la qabto madaxweynaha ahayd oo aanan qaban way jiraan marka way badan yihiin mar rabo annagu maxay tahay gudaha iyaga mooyaane inaan dibadda u saaro waxyaabaha aan kuu sheegaya warta annaga aan basalaanta ba iska qaadin miyaan wada tashan karaa so many times timaha ka badan adeero uu meeshtan ana madaxweyne ka ah buu yiri waxaan dastuurka iyo sharcigaas aan ilaalinayaan kaas ma ku taagay hadalkan ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa si rasmi u cadeynaya inuu jiro khilaaf xoogan oo u dhaxeeya isaga iyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waxaana inta badan guul daraystay kulamo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo labada mas'uul dhowaan ayay ahayd xubno ka tirsan golaha baarlamaanka Puntland siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay deegaanada Puntland iyo gudaha Soomaaliya odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Puntland ay isku dayeen in ay kala dhexgalaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa madaxtooyada Puntland iyadoo markii dambe uu guul daraystay in la dhameeyo khilaafka u dhaxeeya Axmed Karaash iyo Siciid Dani mahadsanid Cumar maamulkii Hirshabeelle ayaa walaac xoogan ka muujiyay fatahaadda uu webiga Shabeelle ka geysanayo deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyagoona shacabkaasi ay walaac badan ka muujinayaan iminka fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle sida uu warkan inoogu soo diray Bashiir Cali Daahir
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa sheegay in aysan haatan fatahaada webiga Shabeelle uu ka geysanayo deegaanada gobolkan Shabeellaha Dhexe sheegay in webiga Shabeelle uu yahay mid korshub ah ayna haatan u taagwaayeen sidii wax ugu qaban lahaayeen ka hortagga fatahaada webiga Shabeelle oo labada dhinac uu ka shubayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa tilmaamay in loo baahan yahay dadka ku barakacay fatahaada webiga Shabeelle deegaano hoostaga degmada Mahadayo ee saameynta xooggan u geysatay fatahaada webiga Shabeelle gobolkan Shabeellaha Dhexe in gurmad lala gaaro waxaan leenahay deegaanadan dhibaatada ka jirto waa dhibaato aad u ballaaran waxay marow hayaan biyaha webiga inay dadka xareedda tacbaday ay biyaha xareedda ay galow hayaan wiligoor meelina gaareen waa biyo labada dhinac webiga uga daatay wuxuu ma ahan fatahaad hal meel ka socoto waa waxa korshub la yiraahdo labada dhinac webiga u daatay wax laga qaban karana waa naqa waayeen waxaan leenahay ummadan fasilka horena dhibaato gaartay fasalkii labaadna waa kan markii badarka ay tacbadeen haddana biyo qaaday waxaan leenahay cid kasta wax la soo gaari kartaa la soo gaarto dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan Hirshabelle gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle inay u hoggaansamaan talooyinka wasaaradda caafimaadka si looga hortago caabuqa coronavirus cudurkan corona oo adduunka dhan ka yaabiyay waxaan la ilaahay naga dulqaadan leeyahay iyo in maaragtay la qaato talooyinka wasaaradda caafimaadka ay jeedinayso ee ku saabsan cudurkan adduunka dhan ka yaabiyay ee corona in talooyinkaas la qaato isu imaatinka iyo goobaha lagu kulmaayana aad loo yareeyaan ugu baaqayaa warkan ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa wuxuu imaanayaa xilli haatan ay sii kordhayso dhibaatooyinka aadka u adag ay wajahayaan dadka ka barakacayo fatahaada webiga Shabeelle deegaano ka tirsan degmada Mahadayo xilli dhawaan uu halkaasi gaarsiiyay deeqir gaar oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkaasi fatahaada ay waxyeelada ka soo gaartay ee degmada Mahadayo Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar kiisas cusub oo la xiriira cudurka COVID-19 ayaa laga helay deegaano ka tirsan Galmudug Xanad Maxamed Karaama inoo faahfaahiyo warkan isku duwaha wasaaradda caafimaadka Galmudug ee gobolka Mudug ayaa sheegay in kiisas hor leh oo la xiriira caabuqa coronavirus laga helay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug isku duwaha oo sii hadliyay ayaa sidoo kale sheegay in cabsi soo wajahday dadka degan deegaanada maamulka Galmudug iyadoo 3 qof la baaray saacadii u dambeeyay 11 kamid ah laga waayay cudurka halka inta kale laga helay calaamado la xiriira cudurkan sida la socotaanba gobolka Mudug waxaa la baaray 34 qof 34taas qof markii la soo baaray 11 ayaa waxay noqotay positive COVID-19 caabuqa coronavirus sida la socotaanba 11 waxay noqotay Mudug positive hal qofna wuxuu noqday positive oo galgaduud ah marka guud ahaan Galmudug positive waa 12 waxaa jira cabashooyin kale hadda ka imaanaya goobaha fogfog ee ka fog magaalooyinka iyo degmooyinka ku hareeraysanba sida maaragtay dadka inay ka cabanayaan qandho qufac iyo dhammaan calaamadihii COVID-19 wax u eg inay dadku ay ka cabanayaan qataraha noo muuqdaa waxay yihiin maadaama laga soo jeegayo goobihii caafimaadka goob kaste inuu ku soo badanayo xanuunka dadka qandhada qaba imaanayaan ama qufacaya ay imaanayaan halkaas waxaan dareemaynaa in qatar ay soo fool leedahay sababtoo ah waa ka badan yahay bukaanada dadku maaragtay waxyaabaha dadku ay soo warinayaan ama isbitaalladu ay soo warinayaan way ka badan tahay tii hore ee daatadii hore isbitaallada laga heli jiray dadka qandhada iyo qufaca ayaa aad u sii badanaya miyi iyo magaalada Kaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa meesha ugu badan ee deegaanada Galmudug laga helay kiisaska ugu badan ee caabuqa coronavirus ayadoona haatan cudurkan uu si weyn ugu baahay gudahan dalka oo dhan waa tahay dhegeystayaal aad buu u mahadsan yahay Xanad Maxamed Karaama markana war degdeg ah oo hadda na soo gaaray wuxuu sheegayaa in qarax lala beegsaday taliyaha hoggaanka caafimaadka Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo markii labaad uu ka badbaadayo xog arintaasi ku aadan waxaa inoo haya oo stuudiyaha koowaad ee idaacadda Kulmiye ee gula sugan Cali Ibrahim Cabdullaahi Cali Saxiif Cali soo dhawow bal wararkii ugu dambeeyay qarax mawlido waa maasan tahay wararka aan helin waxay sheegayaan in qarax nooca miinada ah ay ka dhacday degmada Waaberi ee gobolka Banaadir gaar ahaan wadada Afisyooni sida aan xogta ku helino qaraxana waxaa lala beegsaday gaari uu lahaa taliyaha hoggaanka caafimaadka ee booliiska Soomaaliyeed Cali Xirsi Barre Cali Gaab wararka waxay sheegeen in taliyaha uu ka badbaaday goobjoogiyaal la hadlana waxay sheegeen
in hal qof oo mooto lablugaaley watay uu ku dhaawacmay sida aan xogta ku helano ama dhugdhugley sida ay dadka u yaqaanaan. Marka goobta qarax uu ka dhacay ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa gaaray. Sida la socotid waa markii labaad oo taliyaha hoggaanka caafimaadka qarax lagula beegsanayo. Horey isgoyska banaadir magaalada Muqdisho sidan oo kale qarax ayaa la beegsaday taliyaha hoggaanka. Taliyaha oo goordhown aan la hadalnay weli telefoonadiisa ma uusan ka jawaabay sababo la xiriira mashquul aad u fara badan. Marka saacadaha soo aadan dhegeystayaasheen waxaan usoo gudbin doonaa xogaha ku aadan qaraxan iyo taliyaha oo isaga uu si guud u faahfaahin doono hadduu la yiraahdo. aad baad u mahadsan tahay cali suxayfa oo xog inaga siinayay qaraxii goordhow lala eegtay taliyaha hoggaanka caafimaadka ee booliska Soomaaliyeed Cali Gaab oo markii labaad uu ka badbaaday. markana koonfur Afrika haddii aynu eegno hoos u dhac ayaa lagu soo waramayaa inuu ku yimid faafidda COVID-19 ee dalka koonfur Afrika iyadoona Soomaalida ku nool dalkaasi ay bilaabeen in ay dib u furaan goobahooda ganacsiga. waxaa warkan dalka koonfur Afrika ka soo diray Sharmaake Nuur UK. waxaa hoos u dhac laga dareemayaa faafidda cudurka coronavirus magaalooyinka waaweyn ee dalkan koonfur Afrika sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka dalkani. Talaabadan ayaa waxa ay ka dhalatay in ganacsada Soomaaliyeed ay bilaabaan in si tartiib u furaan goobahooda ganacsiga iyagoo aad uga taxadaraya cudurka COVID-19. qaar ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ayaa waxa ay keenan u sheegay in hoos u dhaca cudurka fayraska COVID-19 ay iyagu faa'iido weyn u tahay isla markaana ay rajeynayaan in isbedel nololeed sameeyaan kadib muddo dheer oo ay dareemeen hoos u dhac dhanka dhaqaalaha. taasina waxa ay keentay in nolol maalmeedkooda ay waayaan. goobaha dib uu ka bilaawda ganacsiga ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka Cape Town, Johannesburg, Port Elizabeth iyo KwaZulu-Natal. dib u furashada goobaha ganacsiga ee Soomaalida ku leeyihiin dalkan koonfur Afrika ayaa ku soo aadaysa xilli cabsi badan ay dareemayaan ganacsada Soomaaliyeed taasoo ku aadan in ay boob iyo dhac kala kulmaan kooxaha burcada koonfur Afrikaanka maadaama ganacsigu hadda ay mid tartiib u furmay. Sharmaake Nuur UK, KNN, South Africa. aad u mahadsan yahay Sharmaake Nuur UK. markana magaalada Muqdisho haddaan dib ugu soo laabano maalintii labaad ayaa si weyn looga ciidaya magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka xilli dadka qaar ay maanta ciidayaan maalintii koowaad ee Ciidul Fidriga. waxaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka laga dareemayaa maalinta labaad ee Ciidul Fidriga iyadoona la arkayo shacab badan oo damaashaadaya walow dadka qaar maanta ciida ay ku u tahay halka kuwa kalena ay maalinta labaad u dabaaldegayaan Ciidul Fidriga. magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka waxaa laga dareemayaa farxadda maalinta ciida waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada ku damaashaadaya shacab badan haba u badnaadaane caruur iyo habeen. goobaha loo dalxiis tago ee magaalada sida taalada daljirka Dahsoon iyo xeebta Liido ayaa shalay iyo maanta waxaa aad ugu qulqulaya shacabkii ugu badnaa oo farxadda ciida halkaasi ku qaybsanaya. markana wararka caalamka. warshada isbuunyada Dubai kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso. waxaa jira hadal hayn ah in cudurka COVID-19 uu ku soo rogaal celinayo dalal u haystay in ay xakameeyeen. arrintan ayaa waxa ay in badan ka digayeen saynisyahanada iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. hirkan labaad ee cudurka coronavirus hadda ma ahan xilligii la dhihi lahaa laakiin waa xilligii lagu baraarugi lahaa ayuu yidhi Dr. Jennifer Ron oo ku takhasusay cilmiga noolaha oo aad ula socday sida uu qaaradda Asia uu cudurkan ugu faafay dunida kalena uu u gaaray. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay sheegtay in ay fayraskan cusub xakameyntiisuna ay u baahan tahay dadaal ballaaran. wadamada la yimid xeelado iyo in ay xakameeyaan cudurka safmarka ee coronavirus iyaga oo u maraya baaritaan dabagal iyo maareynta xayiraadaha oo ay ka mid yihiin dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan oo qaaradda Asia ku yaala iyo Jarmalka oo ku yaala Yurub ayaa haatan laga soo sheegayaa markii ay xayiraadaha dabciyeen in uu cudurka mar kale uu ku soo noqday.
wargeyska The Guardian wuxuu toddobaadkan qoray kooxda jawaabka bixinta COVID-19 ee midowda Yurub waxayna soo jeediyeen in ay isu diyaariyaan hirka labaad ee cudurkan safmareenka ee COVID-19. su-aashana waxay tahay xilligee iyo intay la eg tahay ayuu yidhi agaasime Adria Amon. cashiro noocee ah ayaan ka baranaynaa wadamada markii hore la macaamilay COVID-19 isla markaana xakameeyey oo dunida inteeda kale horay kaga horeeyey saameynta coronavirus.